dhalinyaro ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Qisada filimkeenna waxay ku bilaabanaysaa tareen ay dad wada saaran yihiin, halkaasoo ay hadda ka dhacayaan waxaan caadi ahayn. Sababtoo ah nin tareenkaa saarnaa oo baskoolad watay ayaa handadaya dadka tareenka la saaran, asagoo dadka u sheegaya qofkii amarkiisa qaadan waayo inuu dili doono asaga. Taa dabadeedna wuxuu arkay dad ajaaniba oo tareenka la saaran, islamarkiina markuu ogaaday inay dadka asaga ka baqayaan aad buu u farxay. Islamarkiina dadka wuxuu ku yidhi maxaa iiga baqaysaa, sababtoo ah baskooladan waa feey, meeshaana waxaan ka ogaanaynaa hubku inuu ku faafay kuuriya oo dhan. Intaa dabadeedna si lama filaana xabad ayuu u riday, dadkuna isla markiiba waxay ogaadeen baskooladan inay tahay mid runa ah. Dhinaca kalena waxaan aragnaa wiil dhallinyaraha oo layidhi kaasoo hadda tareenkaa saarnaa, islamarkiina wuxuu u tagay nin kursi fiyey isagoo ka codsanaya inuu booskiisa uga kaco naag uur leh, laakiin ninka ayaa isla markiiba iska diiday arrinta, sidoo kalena xushmad darro u muujiya asaga. yuunna maadaamuu arrintaa ka xumaday, ninkaas si tartiiba wuxuu uga codsaday inuu gabadha booska uga kaco, laakiin ninka ayaa caaya asaga. Balse intay labadooda wada murmaayeen naagta ayaa soo dhex gashay, ayadoo kule iska daa ninkan, anigu waan iska taagnaa karaaye. Si kastaba ha ahaatee carab badan ayuu arrintaa kasii qaaday wiilka. Muddo kadibna wuxuu ka soo degay tareenka isagoo aadaya iskoolkiisa. wax yar kadibna markuu fasalka tagay, maadaama uu soo daahay macallinkiisa ayaa aad ugu qayliya asagoo caynayo, laakiin isla markiiba qorigiisa ayuu la soo baxay. si degdegana wuxuu u laayay macallinka iyo ardadii kale ee fasalka tagay, isagoo dhammaantood ku eedeynaya maalin kasta inay xushmad darreeyaan asaga. dagaal badan kadibna wuxuu ku guulaystay inuu laayo dhammaantood. intaa dabadeedna aad buu u qayliya asaga, isagoo qoriga isku qabanaya si uu markiisa soo. intaa dabadeedna muuqaalkeena si lama filaana wuxuu ugu wareegayaa wiilka oo hadda hor fadhiya dhakhtaradiisa cilmi nafsiga, islamarkiina wuxuu u sheegay sida loo haya asaga iyo inuu qabo xanuun xagga maskaxda ah. habeen kastana anigu waxaan ku riyoodaa riyo xun, riyadaana waxaan ku leynayaa ardada fasalka oo dhan, marka waxaan rabaa inaa arrintaa wax igala qabatid. islamarkiina dhakhtaradda maadaama ay ahayd qof professionaal ah waxay u sheegtay inuu qaato daawooyinka, laakiin yuun islamarkiiba wuxuu ayada ugu jawaabay daawooyinka waxba igama tarayaan aniga. si kastaba ha ahaatee dhakhtaraddu ugu dambayntii waxay asaga kula talisay inuu nasiino dheer qaato si maskaxdiisa ay u degto. dhinaca kalena waxaan aragnaa sargaal la yidhaahdo Kim, kaasoo hadda la jooga ilmo yaryar. meeshaana waxaan ka ogaanaynaa ninkan inuu had iyo jeer u hiiliyo dadka aan waxba galabsan, dadka dembila'aanta ah. haddana ilmahan yaryar maadaamay u keeneen boorso asaga ka luntay, shukulaatooyin badan ayuu siiyey ayaga, laakiin isla markiiba taliyihiisa ayaa kasoo dhex galay arrinta, asagoo kule sonkorta dhacda ayaan qabaa, sidaa darteedna shukulaatooyinka ii soo celi, sababtoo aad baan ugu baahanahay ayaga. wax yar kadibna Kim waa la soo wacay isagoo loo sheegayo goobay wax ka dhaceen. wax yar kadibna markuu gurigaa tagay aad buu ula yaabay meesha, sababtoo oo gurigaa daaqadiisa way furay. intaa kadibna si lama filaana gurigaa dhexdiisa wuxuu uga helay xabado. intaa dabadeedna wuxuu fahmay wax badan inay ka qaldan yihiin gurigan. wax yar kadibna markuu galay qolka jiifka uuna furay saqafka meesha, si lama filaana xabado badan ayaa kor uga soo daatay, wuxuuna ogaaday in meeshan hub lagu kaydin jiray. goobtaanna waxaan ka ogaanaynaa kuuriya in hubka uu sharci darre ka yahay, qofkii hub lagu helana waxaa la xirayaa sanado badan. habeenkiina Kim iyo taliyihiisa arrintaa waxay uga shakiyeen ninkii gurigaa degnaa, waxayna aaminsanaayeen mishin weyn inuu leeyahay asaga. maalintii xigtana shaqada booliska waxaa ku soo biiray askari cusub oo la yidhaahdo Jim. haddana taliyihiisa hortiisa wuxuu ka caddeeyey inuu diyaar u yahay inuu si hufan u shaqeeyo, sidoo kalena uu u hiliyo cadaaladda. hawshiisii koowaadna wuxuu u raacay Kim si ay howlgal usoo wada fuliyaan ayaga. waxaan ogaanaynaa inay u socdeen islaan waayeela, taasoo hadda ku hor banaanbixaysa shirkad weyn, sababtoo ah shirkaddan waxaa horay ugu dhintay wiilkeeda. sababtoo ah shirkaddan asagoo u shaqaynaya waxaa horay u dhintay wiilkeeda. shirkadduna wax xushmada umaysan muujin ayada. ninka shirkaddaale muddo kadib markuu yimi oo ay isku dayda inay la hadashana, booliska ayaa ka celiyeen ayada, ayagoo ku qasbaya inay meeshaan isaga tagto. laakiin Kim ayaa u damqaday wakhtiga, isagoo askarta kale u sheegaya haweeneydan inay xaq u leedahay inay ka dacwood kambaniga, sidaa darteedna waa inaad dhegaysateen dacwadeeda. markuu la kulmana wuxuu siiyey keeg yar, asagoo u sheegaya gurigeeda inay aaddo wax kastana ay u hagaagi doonaan ayada. dhinaca kalena yaan waxaan ogaanaynaa hadda inuu toonayo ku noolaashaha kuleejka, sababtoo ardada kale mar walba waxay ka cunayeen cuntadiisa. sidoo kalena markuu arrintaa kala hadlo xushmad darre ayay u muujinayeen. mid ka mid a ardada markuu hadda la hadlana wuxuu bilaabay inuu caayo, sidoo kalena wuxuu bannaanka uga soo tuuray qolka asagoo garaacayo. habeenkii markii la gaarana wuxuu soo qaatay qorigiisa, haddana wuxuu sheegay inuu dili doono qof kasta oo kuleejkan kula nool si uu xornimo u dareemo asaga, maadaama ay aad u dhibaateeyeen. dhinaca kalena waxaan aragnaa haweeney shaqaalaha oo tagaysa guri ay deris ahaayeen si ay u xalliso tubada guriga. meeshaana hadda ma aysan joogin haweeneyda gurigaa leh, laakiin waxaa joogay wiilkeeda, kaasoo xabsi laga soo daaya hadda. gabadhan keligeed markuu arkana wuxuu isku dayay inuu laakiinse intuusan waxba ku samayn ka hor booliska ayaa meeshaa yimaadeen. gabadhaasna booliska maadaama ay wakhti saxa ka soo gaareen way badbaadiyeen ayada. wax yar kadibna Kim iyo ninkaa markay cabbaar wada shaysteen wuxuu isku dayay inuu soo weeraro,
laakiin Kim ayaa garaacay ninka asagoo u sheegaya hadduu mar kale isku dayo inuu dhibaato geysto inuu xabsi dheer u diri doono asaga. dhinaca kalena Yang weli wuxuu dhexda uga jiray daraamadiisa asagoo hadda isku buuqsan, sidoo kalena wuxuu go'aansaday inuu laayo qof kasta oo ku hareeraysan asaga maadaama uu u arkayo dadka meeshan inay cadow ku yihiin asaga. dhinaca kalena sanado badan ka hor markaan u laabanno waxaan aragnaa wiil yar kaasoo hadda uu gurigooda soo weeraray nin waalan, sidoo kalena uu laayay walaalkii iyo waalidiintiiba. wiilkaa yarna wuxuu ahaa Kim, haddana waxaa u yimi nin askariya asagoo u sheegayo inuu korsan doono, sidoo kalena ilowsiinaya wixii ku dhacay waalidiintii. waqti xaadirka markaan usoo laabanana Hyun wuxuu soo qaatay qorigiisa wuxuuna bilaabay inuu laayo dadkii la deganaa hoosteelka. wax yar kadibna meesha waxaa yimi boolis, asaga iyo booliskana meesha waxaa ku dhex maray dagaal xooggan. arrintaana waxay keentay boolisku inay wiilka gacanta ku dhigaan asagoo bad qaba. intaa kadibna boolisku waxay gudaha u galeen qolka wiilka si ay macluumaad badan meesha uga helaan. intay meesha joogeenna markay sariirtiisa marada ka qaadeen hoosteeda waxay ku arkeen sanduuq weyn kaasoo ay ku jiraan qoryo badan oo boobayaal ah. muddo kadibna markaan ku laabanno saldhigga booliska askartu waxay la yaabanaayeen hubkan tirada badan sidii lagu soo geliyo dalkooda, sababtoo ah ilaboorada South Korea security adag ayay leeyihiin, aad bayna u adagtaa waddankan hub sharci darraa in la soo geliyo. si kastaba ha ahaatee askartan taliyahooda wuxuu ku amray kiiskan inuu ahaado mid sir ah oo aysan cidna la wadaagin ayaga. muddo kadibna Hyun markuu soo roonaado wuxuu bilaabay inuu cunto cuno asagoo u dhaqmaya sidii qof aan weligii horay wax u samaynin. intaa dabadeedna markay baarayaashu su'aalo weydiiyeen wuxuu diiday inuu wax jawaaba siiyo ayaga ilaa uu kala kulmayo dembi baare Kim. wax yar kadibna labadooda markay wada kulmeen Hyun Kim wuxuu u sheegay wax kasta uu horay usoo sameeyey inuu sameeyey asagoo aan iska warqabin, sababtoo ama kontarooli kara nafsadayda. sidoo kalena wiilka Kim wuxuu u sheegay inuu ka duwan yahay dadka kale maadaama maskaxiyan uu xanuunsanayo asaga. intaa dabadeedna Kim markuu wax ka weydiiyo hubkan meesha uu ka soo galay asaga wuxuu u sheegay hubkan in markab loogu keenay asaga sidaana waddanka lagu soo geliyey. intaa dabadeedna Kim mar kale wiilka wuxuu weydiiyey maadaama aa hadda dishay 20 qof wax shalay ama dareemaysaa adiga. laakiin Hyun ayaa u sheegay dadka inay dhimashada istaahileen maadaama ay burcad ahaayeen ayaga, sidoo kalena sharciga dalka waxba uu ka qaban waayay ayaga. sidaa darteedna waxaan ku qasbanaaday inaan gacan bira ku qabto ayaga maadaama ay in badan dhibaataynayeen ayaga. intaa dabadeedna wiilka wuxuu hortagay muraayadda isagoo askarta u sheegaya hubka inuu hadda ku faafay South Korea oo dhan, sidaa darteedna aad bay u adag tahay inaa xakameynka. dhinaca kalena iskool ku yaala magaalo kale waxaan ku aragnaa arday burcada oo dhibaataynaya arday la yidhaahdo Haad. intaan wiilkaa la garaacin ka horna si lama filaana waxaa mi saaxiibkii Lee si u badbaadiya asaga. intaa dabadeedna gaangistaradu way garaaceen ayaga, intaa kadibna way ka tageen. dhinaca kalena Joy si lama filaana wuxuu u tagay supermarket. intuu meeshaa joogana naago goobtaa joogay ayaa wax ka sheegayeen asaga maadaama uu arrintaa ka xanaaqana wuxuu qorsheeyey inuu laayo gabdhahan maadaama ay ku xadgudbeen. muddo kadibna Joy asagoo arrintaa ka caraysan ayuu ku soo laabtay guriga, laakiin si lama filaana ayuu guriga hortiisa uga helay. intaa kadibna markuu kartoonkaa fulay wuxuu ka dhex helay qori booba ah. isla markii uu arrintaa arkana aad buu u farxay maadaama hadda ay u fududaanayso aargoosigiisa. goob kalena waxaan aragnaa gaangistar Leesio kaasoo hadda shaqaalaysiistay gaangistarro cusub si uu uga aarsado nin ganacsada ah, ninkaasoo horay lacag badan uga dhacay asaga si uu lacagtiisa uga soo ceshto asaga. markaan ku laabanno Joyna mar walba wuxuu isku dayayo inuu qariyo meesha uu joogo maadaama uu dembiyo badan horay u galay asaga. laakiin wakhtigaas si lama filaana booliska ayaa u soo waceen asaga waxayna u sheegeen inuu yimaado saldhigga ugu dhow si baaritaan dheeraada loogu sameeyo asaga. laakiin wakhtigaa ninkaa wuxuu joogay kaynta si qarsoodiyana isla markiiba wuxuu u bilaabay inuu ku shiish barto ugaarta. dhinaca kalena Haad wuxuu rabay inuu xado masterkaarka hooyadii si uu ugu geeyo ardada mar walba garaacda asaga maadaama ay arrintaa ku amreen, laakiinse waxa uu cuntami weyey arrinta maadaama hooyadii ay wax kasta u qabato asaga. muddo kadibna markuu gaangistarada habeenkii la kulmo waxay bilaabeen inay dhibaateeyaan asaga, laakiin wuxuu u sheegay hooyadii inay dhibaato kasta u martay siday wax ugu qaban lahayd asaga, sidaa darteedna uusan awoodin inuu khiyaano ayada. si kastaba ha ahaatee gaangistarada kamaysan yeelin arrintaa maadaama ay dantooda ka waayeen, si xun ayayna u garaaceen asaga. habeenkiina wiilka maadaama uu dhagaystay hadalka wiilkii horey u soo qabanayeen booliska wuxuu isku taxalluujiyey inuu sida wiilkaa oo kale uu helo hubka asagoo kambaniyaasha wax soo dhoofiya weydiisanayo sida ugu fududay hubka ugu keeni karaan asaga. dhinaca kalena askarta intay baaritaankooda wadeen si lama filaana waxay u ogaadeen guri la geeyo hubka. isla markii uu askariga gurigaa baarana wuxuu ogaaday inuu yahay kan Joy. isla markiina Kim wuxuu wacay askarta si uu ula wadaago arrinta, laakiin waxaa loo sheegay Joy in hubka loo keenay balse ay booliska ka qaadeen asaga. intaa dabadeedna askariga markuu baaritaankiisa sii watay wuxuu ogaaday aalad qarsoodi ah oo ay isticmaalayaan nimanka hubka soo dhoofiya
muddo kadibna Kim wuxuu tagay guriga Joy isla markiina goobta wuxuu ku ogaaday meeshan ay ka dhacayaan howl qaban isla markiina meesha wuxuu ku qabtay wiil dhallinyaro oo la yiraahdo Moon kaasoo u sheegay inuu yahay qofkii delivery Joy bokiska markuu Kim furana wuxuu ku arkay lambaro iyo magacyo aan si toosan loo garanayn kuwaasoo Joy uu rabay inuu isticmaalo asaga waqtigaana intay labadooda wada hadlayeen qof ayaa silna albaabka u isla markii Moon arrinta arkana wuxuu yeeyay nalka qofka markay daba galeenna waxay ogaadeen mid ah burcadda u shaqaysa Siyool cayrsi badan kadibna gacanta ayay ku xiraaya tabeelo meesha ku yaalay muddo kadibna Kim wuxuu wacay askarta kale isagoo u sheegaya inuu helay guri uu hadda ka sidoo kalena waxaan aaminsanahay guriga inuu hubku ku dhinaca kalena boolisku waxay bilaabeen inay baaraan dhaqdhaqaaqa Joy ayagoo kala soconaya kaamiradaha ku dhan wadooyinka gurigiisa dhinaca kalena Moon gaariga xoog ayuu ku waday asagoo arrinta u sameynaya Kim sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ku geeyo meesha uu rabo asaga waqtigaana si lama filaana Kim naag ayaa u soo wacday laakiin isla markiiba wuxuu u sheegay inuu san yahay hadda intaa kadibna labadooda si degdeg ah waxay u aadeen meeshii uu Joy joogay ayagoo isweydiinaya ninka inuu hadda hubaysan yahay iyo in kale dhinaca kalena Joy asagoo qorigiisa wato wuxuu tagay si uu u argo isla markii albaabka laga furana meesha wuxuu ku leeyahay laba askari intaa dabadeedna askari saddexaad ayuu gacanta ku dhigay askarigaana wuxuu u sheegay inay ka jiran tahay gabadhiisa oo 5 jir ah sidaa darteedna haydilin sababtoo ah waxaan rabaa gabadhayda inaan isbitaal geeyo laakiin Joy kamuusan yeelin arrinta meesha ayuuna ku dilay nin wax yar kadibna Kim ayaa meesha yimid isagoo ninka u sheegayo inuu is soo dhiibo laakiin isla markiiba xabad ayuu ugu jawaabay labadoodana dagaal adag ayaa meesha ayaga dagaalka intuu socdana Joy wuxuu ku inuu laayo qaar badan oo askarta ka mid ah sidoo kalena Kim wuxuu u sheegay haddaad rabtay inaad naftaada ku daayo waa inaa i barisaa aniga intaa dabadeedna waxaan ogaanaynaa Joy meesha uu soo weeraray inay ahayd saldhig booliis sidaa darteedna qorshihiisa wuxuu ahaa inuu laayo askarta meesha joogta oo dhan dhinaca kalena Kim wuxuu rabay inuu ninka gacanta si sharciga loogu ciqaabo asaga balse Joy maadaama uu dagaalamayo in si fudud gacanta loogu dhigo aad bay u adkay ugu dambayntiina ninka meesha ayuu ku dilay asaga dhinaca kalena intuu dagaalka meesha ka socday waxaa duubtay saxaafadda intaa dabadeedna tiifiyada ayaa laga baahiyey askarta kalena markay arkeen Kim wuxuu sameeyey aad bay ula yaabeen asaga sidoo kalena wariyayaashu waxay u dabaaldegeen maadaama ay keeneen xog exclusive dhinaca kalena haad arrintaa wuxuu ka daawaday isla markiina meesha wuxuu ka ogaaday kiduu geesi u yahay asaga intaa kadibna wiilka ardayga wuxuu bilaabay inuu online ka raadiyo meesha qoryaha lagu gado si kastaba ha ahaatee Kim halkii laga rabay in laga abaalmariyo taliyayaasha asaga ka sarreeya way ku qayliyeen ayagoo ku eedeynaya inuu si ula kaca u dilay Joy sidoo kalena hadda waxaa la weydiiyey cidda xaqa u say arrinta si kastaba ha ahaatee Kim wuxuu ayaga u sheegay maadaama uu ninka dagaayay wax doorasho ah oo kale ma aanan hayn sidaa darteedna waan dilay balse taliyayaashiisa ma aysan dhagin waxayna u sheegeen inuu dembiile yahay maadaama qof uu gacanta ku dhigi karo uu dilay asaga waqtigaana si lama filaana saldhigga waxaa u yimid taliyaha wuxuuna meeshan ka sheegay ninka inuu horey u dilay 20 askari sidaa darteedna Kim wuxuu ku saxnaa inuu dilo ninka horarka adinkana waa ku qaldantihiin inaa canaanataan asaga halka aad hadda ka caynaysaanna wuxuu idinka mudnaa inaa ugu yeertaan geesi maadaama uu badbaadiyay askarta inta ka hartay si kastaba ha ahaatee maalintii xigtay waxaa shaqada laga ganaaxay Kim laakiinse asxaabtiisa sharciga waxba kamaysan soo qaadin welina waxay sii wateen inay la shaqeeyaan asaga maadaama ay u arkayeen qof aan dembi lahayn waqti kadibna Kim wuxuu booqday Kanjo kaasoo uga shakisnaa inuu soo tahriibiyo hubka labadooda markay wada kulmeenna Kanjo wuxuu iska diiday arrinta isagoo iska fogeynaya eedeymaha loo soo intaa dabadeedna markay labadooda wada murmeen ragga Kanjo hubkooda ayay la soo baxeen say u handadaan Kim si kastaba ha ahaatee Kim kamuusan baqin ayaga intaa kadibna ninka wuxuu soo hordhigay sawirka wiil yar kaasoo uu weydiiyey inuu yaqaano wiilkan iyo in kale kaasoo uu weydiiyey inuu wiilkan yaqaano balse Kanjo ayaa markale iska diiday inuu wiilka yaqaano ugu dambayntiina Kim markuu ninka ka tagayo wuxuu haddii aan ogaaday inaa ku lug leedahay hubka la soo dhoofinayo waxaan xirayaa kasiimooyinkaaga oo dhan xabsiga ayaana kuu taxaabayaa adiga dhinaca kalena ardayda gaangiska ah weli waxay sii wadeen dhibka ay ku hayaan haad ayagoo madaxa cunto uga shubaya mar walbana aad u dhibaataynaya asaga waqti dambe oo maalintaana wiilka waxaa loo soo riimahan jabaada taasoo loogu sheegaya hadduu soo qaadin kaarka hooyadii in dhibaatada ay ku sii socon doonta habeenkii markii la gaarana waxaa loo keenay bokis markuu bokis ka furana qori booba ayuu meesha ka dhinaca kalena Kim wuxuu la fariistay Moon asagoo hadda isku dayayo inuu wax badan ka ogaado wiilkan isla markiina Moon wuxuu asaga u sheegay inuu la xanuunsan yahay cudurka kansarka muddo 6 bilood ayaana la xanuunsanahay cudurka intaa kadibna shaarka ayuu iska siiyey si uu u tuso calaamadihiisa sidoo kalena wuxuu u sheegay hadda inuu cudurkan ku faafay jirkiisa oo dhan si kastaba ha ahaatee Kim wiilkan wuxuu sidoo qoriga ku helay asaga isla markiina Moon wuxuu u sharxay arrinta asagoo u sheegaya maalin maalmaha ka mid ah inuu iska diiwaangeliyo ab hubka laga iibiyo isla markii aan abka iska diiwaangeliyana si degdega ayaa qoriga la iigu keenay aniga intaa dabadeedna markaan isku dayo mar kale inaan uu ii shaqayn waayo asaga intaa kadibna Kim wuxuu isku dayay adereesyaashii kasyada ka helay inuu diiwaan geliyo laakiin isla waqtigaaba waa la soo wacay
ayadoo loo sheegayo qof in hadda hub loo keeno. qofkaana cid kale ma ahayn waxay ahayd naagtii soo wiciisa asaga. isla markiina muun wuxuu isku dayay inuu waco islaanta, laakiin taleefanka kamaysan qaban asaga. dhinaca kalena waxaan aragnaa islaan hortaagan gaari ka soo baxaya garaashka. isla markiina ninkii gaariga waday wuxuu ka codsaday inay ka horwareeg, laakiin waxay ka diiday arrinta. intaa dabadeedna baskoolad ayay ula soo baxday ayadoo ku qabanaysa. muddo ka hor markaan u laabannana waxaan ogaanaynaa islaanta inay bokis ka heshay isla abkii wiilka hubka u soo diray. markaan waqti xaadirkan ku soo laabannana ninka ganacsadaha naag wuxuu ka baryayay naftii, laakiin waxay u sheegtay wiilkiisaba markuu dhimanayay u naxariisan asaga. haddana waxaa la gaaray wakhtigii aan ka aarsan lahaa adiga, sidaa ayayna ku dishay ninka. intaa dabadeedna islaanta waxay wacday ayadoo u sheegaysa inay ka takhalusta ninkii ganacsadaha ahaa. sidoo kalena waxaan kaa codsanayaa inaa hal mar jaanis si aan cashadii ugu dambaysa aan ula qaato wiilkayga intaadan ixirin ka hor. wax yar kadibna waxay timid guriga ayadoo ka hor cuntaynaysa, laakiin wakhtigaasi lama filaana waxaa loo soo garaacay albaabkayga. markay albaabka furtana waxay ogaatay qofka inuu yahay haad. sidoo kalena meesha waxaa yimi Kim, isla markiina wuxuu wacay islaanta, laakiin taleefanka kamaysan qaban asaga. intaa kadibna wuxuu meeshan ka fahmay qof kale inuu gurigan joogo, dhagar kalena uu maleegaya asaga. markuu ninka muraayadda fiiriyana si lama filaana nin burcada ayaa u soo weeraray asaga. dhinaca kalena muun xilligaa bannaanka ayuu joogay asagoo gaariga saaran, laakiin wakhtigaas si lama filaana meesha wuxuu ugu arkay gaari hoomeey oo xoogaa u jira. isla markiina si degdega wuxuu u tagay meesha, wuxuuna ogaaday koox burcada inay meesha joogaan. markuu ogaaday inay gaangistari yihiinna isla markiiba wuxuu isku dayay inuu maaweeliyo ayaga, asagoo u sheegaya inuu meeshan ku cusub yahay. sidoo kalena wuxuu weydiiyey waxay meeshan ka qabanayaan ayaga. si kastaba ha ahaatee intuu la sheekaysanayo mid ka mid a burcadda taleefanka wuxuu ku arkay sawirka Kim, sidaa darteedna si degdega ayuu albaabka ugu xiray ayaga. burcadduna markay arkeen habdhaqankiisa isla markiiba waxay isku dayeen inay weeraraan asaga, laakiin muun si degdega wuxuu u koray gaarigiisa. isla markiina reefis ayuu gashtay asagoo raba inuu si degdega meeshaan isaga tago asaga. dhinaca kalena burcaddu ugu dambayntii waxay ku guulaysteen inay gaariga ka soo baxaan, waxayna bilaabeen inay daba galaan ninka. dhinaca kalena Kim waxay iswajahayeen haad iyo burcaddiisa, isla markiina waxay isku dayeen inay soo weeraraan Kim, laakiin Kim ayaa xabado nool u adeegsaday ayaga asagoo mid mid u laynaya. si kastaba ha ahaatee dagaal xooggan ayaa meesha ku dhexay ayaga. burcadduna waxay isku dayayeen inay ka takhalusaan ninkan booliska, sababtoo ah wuxuu fahmay qorshahooda, halka Kimna uu ku dadaalayay siduu u soo afjari lahaa ayaga. intuu dagaalkan socdana xirfad sare ayuu soo bandhigay. dagaal badan kadibna ugu dambayntii u guulaystay inuu meesha ka soo badbaadiyey islaantii waayeelka. intaa kadibna asaga iyo saaxiibkii si degdega ayay meesha ugala carareen ayagoo u kaxaynaya isbitaalka. intay gaariga saarnaayeenna Kim wuxuu ka shalaynayay inuusan islaantan la hadlin markii ay soo wacaysay, sababtoo ah xog badan ayay u sheegi lahayd asaga. wakhti kadibna islaanta markii isbitaalka la geeyey, Kim wuxuu ku dadaalayay sidii loo badbaadin lahaa islaanta, maadaama ay macluumaad badan og tahay ayada. muddo ka hor markaan u laabannana waxaan ogaanayn Kim sanad ka hor inuu la kulmay islaanta ayadoo waddada fadhi. intaa kadibna si naxariis leh wuxuu ugu qaaday gaariga booliska asagoo geynayo gurigeeda. intaa dabadeedna hadiyad qaaliya ayay siisay asaga. waqti xaadirkan markaan ku soo laabannana Kim weli wuxuu ka naxsanaa arrinta naagta, halka muunna uu isku dayayo inuu dejiyo asaga. intaa dabadeedna si lama filaana waxa u soo waceen booliska ayagoo u sheegaya qaar ka mid a burcaddii uu garaacay inay jeebkooda ka heleen macluumaad badan. sidoo kalena waxaan ka helnay warqad ay ku qoran yihiin magacyada dad iyo adereesyadooda kuwaasoo la doonaya in la dilo ayaga. habeenkiina Kim wuxuu la kulmay askarigii saaxiibada ay ahaayeen. xilligaana ninkaa wuxuu la wadaagay magacyadan iyo liistayaashooda dhammaantood in la doonayo in hub guryahooda loogu geeyo ayaga. arrintaanna waxaa ka dambeeyaan burcad sarsare oo aad u awood badan. burcaddaana waxay ka faa'iidaysanayaan dadka ku dhex dul bulshada, ayagoo dadka caradooda ka faa'iidaysanayana waxay rabaan si dadban u laayaan dad badan si qof kasta oo la dhibaateeyey uu u cadgoosto asaga. qof walba oo ay adeegsanayaanna waa qof horay loo dhibay asaga. sidoo kalena meeshan waxaan ka ogaanaynaa qof kasta oo dadka dembiyada geystay ka mid a markuu abkaa hubka ka dalbanayay in la hagareeyo taleefankiisa, sidaana gurigiisa loogu keenay hubka. kulanka kadibna Kim wuxuu wicitaan ka helay saaxiibkii. xilligaana saaxiibkii wuxuu u sheegay wax kasta uu horay ugu soo gudbiyey inay run ahaayeen, sababtoo ah ilaa sanadkii lasoo dhaafay dad badan ayaa hub guryahooda loogu geeyey. wax kasta uu muun horay kuugu sheegana waa run, sababtoo ah hawshan waxaa ka dambeeya dad awood badan kuwaasoo doonaya qof kasta oo la ciilay inuu aarguto asaga. haddana mudane si naxariis leh waxaan kaaga codsaa inaa ilgooniya u lahaatay wiilka. muddo kadibna Kim muun wuxuu kula kulmay isbitaalka. salaam kadibna wiilka wuxuu maxaa sidaan dhan uga taxadaraysaa islaanta waayeelka. isla markiina wuxuu u sheegay islaanta inay yaraantii sababtoo anigoo 3 jir ayay hooyada iga dhimatay. mar kalena Kim wiilkan wuxuu weydiiyey wax ku saabsan waalid. isla markiina muun wuxuu u sheegay weligii inuusan aabihii arag asaga, sidoo kalena hooyaday wax wara kama hayo muddo sannado ah. waqti ka hor markaan u laabannana waxaan aragnaa hooyo ilmo yar wata taasoo hadda doonaysa wiilkeeda inay geyso kolleejka agoomaha,
laakiin wakhtigaasi lama filaana naag ayaa ugu timi isla markiina waxay u sheegtay wiilkan inuu aad u yar sidaa darteedna aniga ayaa korsanaya asaga laakiin xaqiiqada waxay ahayd naagtii wakhtigaa qaadatay inay la shaqaynaysay koox burcada oo ka ganacsata carruurta yar sidoo kalena waddamo kale u dhoofiya ilmaha ayagoo u kala qaadaya da'dooda iyo dhiiggooda nuuca uu yahay ujeeddadooda ugu weynna waxay ahayd in xibnaha ilmaha ay ka ganacsadaan ayaga maalin maalmaha ka midana ninkii burcadan hogaaminayay burcad kale ayaa soo wacay wuxuuna weydiistay cunug dhiiggiisa ay meynis yahay inuu u keno asaga intaa kadibna markii habeenkaa la gaaray intaa dabadeedna isha ayaa laga saaray asaga maalintii xigtana waxaan aragnaa muun oo la jooga naagtii hooyadii haddana naagtaa waxay doonaysa inay asaga u tagto Ameerika si ay suuq fiican ugu hesho wiilkan wakhtigan intay labadooda ay laboorka wada joogeen balse ugumuusan yeerin hooyo maadaama uu fahansanaa inaysan ahayn hooyadii wakhti kadibna wiilkaa yar markii la geeyay Ameerika qalliin degdega ayaa loo diyaariyay asaga si looga ganacsado xibnihiisa balse nasiib wanaag intaan qalliinka lagu bilaabin FBI-da ayaa meeshaasi degdega u timi intaa dabadeedna waxay badbaadiyeen wiilkaa yar wakhti xaadirka markaan ku soo laabanana haad weli waxaa iskoolka ku handadaya gaangistarada ayagoo u sheegaya hadduusan amarkooda qaadan inay garaaci doonaan balse haad wakhtigaa maadaama uu dul qaadan waayey wuxuu iska dhiciyey kooxda isagoo u sheegaya weligiis inuusan amarkooda qaadan doonin asaga waxaad iga doonaysaanna igama helaysaan aniga intaa dabadeedna hogaamiyaha burcadda wuxuu isku dayay inuu garaaco haad laakiin wakhtigaasi lama filaana gambaleelka ayaa u dhacay waxaana ayaga arkay macallinkooda xiisaddii xigtana weli wiilkaa wuxuu sii waday inuu dhibaateeyo haad asagoo ugu hanjabaya markay xiisadda ka baxaan inuu dili doono haddii kalena uu u keeno kaarka bangiga ee hooyadii balse haad wiilkaa hadalkiisa wuu iska indhatiray ilaa markii dambe jaakadda laga dilaaciyey asaga haadna markuu arrintaa arkay aad buu u xanaaqay wiilkaanna wuxuu ku yidhi mar dambe haddaa korkayga taabatay waan iska kaa dhicinayaa adiga dhinaca kalena sayuug wuxuu tagay isbitaalka si uu u ogaado xaaladda raggiisii la garaacay wakhtigaana dhakhtarku wuxuu asaga u sheegay walaalkii inay dhibaato badan soo gaartay mar dambena uusan cagihiisa ku socon doonin asaga intaa dabadeedna sayuug markuu furay taleefanka walaalkii wuxuu ogaaday ninka walaalkii dhibaateeyey inuu yahay Kim wax yar kadibna markuu wiishka la raacay wuxuu ogaaday ninka wiishka hadda la saaray inuu yahay ninka isla markiina wuxuu isku dayay inuu dhibaateeyo intuusan waxba samayn ka horna muun ayaa dhexdooda soo galay asagoo salaamaya ninkaasi uu u maaweelo muunna sidaa ayuu si qarsoodiya ugu badbaadiyey saaxiibkii Kim markay labadooda kala tageenna wuxuu aaday garaash dhultiisa halkaasuu ka soo kaxaystay gaari raaxo oo aad u qurux badan wax yar kadibna markuu tegay qasrigiisa weyn waxaan ogaanaynaa xaqiiqo la yaab leh taasoo ahayd ninkan inuu xukumo gaangistarre aad u tira sidoo kalena maafiyada magaalada oo dhan ay ka dambeeyaan asaga muddo ka hor markaan u laabannana waxaan ogaanaynaa muun markuu dhallinyarada ahaa inuu dilay dhakhtarkii doonaya inuu keliyaha kala baxo asaga iyo raggii la socday oo dhan sidaana wuxuu uga cadgoostay raggii isha kala baxay burcaddan ninkii xukumayana markuu arkay wiilkan yar geesinimadiisa aad buu uga helay asaga maalintii xigtana muun markuu soo kacay aad buu u yaabay sababtoo ah culays ayuu maskaxda ka dareemayay wax yar kadibna waxaa la hadlay maamulaha gaangistarada isagoo u sheegaya inuu yahay wiil geesi intaa dabadeedna markuu muraayadda wuxuu ogaaday il cusub in loo geliya hadda sidoo kalena ishaa iyo ishiisa caadiga ay kala duwan yihiin intaa kadibna maamulaha burcadda wuxuu asaga u kaxeeyey warshad dhulka hoostiisa ku taalla taasoo hubka lagu markuu meeshaa tagana wuxuu baray sida wax loo toogto iyo hubka sida loogu dagaalamo waqti xaadirka markaan ku soo laabannana waxaan arag muun oo hortaagan dhalo weyn taasuu ka maamulayo hubka sharci darrada ee waddankan la soo gelin waxaan ogaanaynaa qorshahan oo dhan inuu ka dambeeyo ninkan ujeeddadiisa ugu weynna waxay tahay guri kasta oo kuuriya ku yaalla inuu qori geeyo asaga muddo ka hor markaan ku laabannana waxaan ogaanaynaa muun inuu doonayo hubka inuu ku faafo waddankan oo dhan sida daroogada loogu faafiyo oo kale sababtoo ah wuxuu doonaya qof kasta oo ay bulshada dulmiyaan inuu helo qori booba ah si uu u cadgoosto asaga ujeeddada ugu weyn ee wiilkanna waxay ahayd in dadka la dhibaateeyay ay gacmahooda ku aargutaan ayaga dhinaca kalena Ken wuxuu la kulmay Siyoog isagoo weydiinaya inuu ku lug leeyahay hubka sharci darrada laakiin wuxuu u sheegay inuusan arrintaa ku lugin mar kalena wuxuu tusay sawirka haad balse wuxuu u sheegay inuusan garanayn wiilka si kastaba ha ahaatee wejigiisa waxaa laga akhrisan karay inuu wax badan qarinayo ninka goob kalena ardadu weli waxay dhibaateynayeen ayagoo hadda madaxa cunto uga shubay intaa kadibna markuu isku dayo inuu iska dhiciyo wiilasha macalinka ayaa meeshaa yimid isla markiina wuxuu weydiiyey inuu fiican yahay haadna wuxuu ugu jawaabay ma waxaan kuula ekahay qof fiican hadda isla markiina macalinka hadalkaa wuxuu u arkay xushmad darro sidoo kalena ma uusan fahmin dhibaatada gaarka ee wiilkan haysata wakhtiga dhinaca kalena Kim iyo saaxiibkii waxay heleen riboodyo qaas ah kuwaasoo caddaynaya hubka inuu hadda ku faafay Kuuriya oo dhan isla wakhtigaana muun si lama filaana wuxuu ula kulmay haad asagoo hadda baraya sida wax loogu shiisho qoriga ah intaa kadibna wuxuu u sheegay gacmihiisa inuu ka cadgoosto asaga intaa dabadeedna wuxuu baray sida wax loo toogto asagoo hadda tusaya asagoo dad badan tooganayo haadna markuu arkay geesinimada muun
ugu dambayntii wuxuu ogolaaday inuu tababaro asaga sidoo kalena uu iska dhiciyo dadka dhibaataynayo xilli dambe oo habeenkaana waxaa la baray sida qoriga loo rido asagoo ku tababaranaya xabado noolnool subaxdii xigtana wiilka markuu soo kacay waxaa loo keenay qori booba ah hubkana hadda wuxuu ku faafay magaalada oo dhan marka xigtana Moon Kim wuxuu ku wareejiyay warqad ay ku qoran yihiin adreesyada hubka la geeyay dadka hubka loo geeyana waxaa ka mid ahaa Haad waqtigaana Kim wuxuu aad ula yaabay sida arday iskuul uu qori u dalban karo asaga arrinta wiilkaana aad buu uga walwalsan dhinaca kalena iskoolka waqtiga waxaa ka jirtay xaaladan caadi ahayn sababtoo ah waxaa xirnaa albaabkiisa sidoo kalena askartu waxay soo waceen maamulada iskoolka ayagoo u sheegaya arday ka mid ah ardadeedii sidoo kalena ay baarto boorsooyinka ardada wax yar kadibna Haad markuu fasalka ku soo laabtay gaangistaradu waxay bilaabeen inay taayaan asaga ayagoo si xun u garaacaya sidoo kalena qoriga ayay ka qaadeen ayagoo u sheegaya qorigan inuu yahay mid deemisha laakiin Haad ayaa u sheegay qorigan balse waqtiga waxaa ku qoslay wiilkii dhibaataynayay waqtigaana ardada si lama filaana qaylo ayay u maqleen waxaan ogaanaynaa dhibaato inay ka dhexso iskoolka sababtoo ah hadda Lee ayaa hub watay wuxuuna bilaabay inuu laayo ardadii kale ee iskoolka la dhiganaysay si uu uga argoosta ayaga maadaama ay horey u dhibaateeyeen markaan ku soo laabanno fasalka wiilkii Haad dhibaataynaya wuxuu furay qoriga meeshaana kuulo ayaa ka soo daateen wax yar kadibna Haad wuxuu fasalka kula kulmay saaxiibkii Lee kaasoo hadda qori wata isla markiina furayaasha iskoolka dhan ayuu ku wareejiyay sidoo kalena baskoolad ayuu siiyay asagoo u sheegaya hadda inuu ka argo wiilasha mar walba dhibaateeya asaga dhinaca kalena Moon iyo Lee markay yimaadeen iskoolku wuxuu waqtigaa ahaa goob dagaal ardaduna isla markiiba waxay ayaga ka baryayeen inay waddo u furaan si ay meeshaan uga baxaan ayaga halka Leena uu soo dabagelayay asagoo dilaya arday kasta oo ka hor yimaada si kastaba ha ahaatee qaar ardada ka mid ah waxay inay bannaanka uga baxaan iskoolka halka waqtigaana Lee uu aaday maktabadda sababtoo ah meesha wuxuu ka ogaa qaar badan oo ka mid ah ardadii asaga horey u dhibaatay inay meesha ku dhuumanayaan ayaga wax yar kadibna meesha waxaa yimi Kim wiilkaana wuxuu ka codsaday inuusan wax dhibaato geysan asaga sababtoo ah mustaqbalkaaga ayaa sidaan ku burburayo sidoo kalena ardadan dhibaatadii adiga ma istaahilaan in loo dilo ayaga laakiin Lee ayaa ugu jawaabay sidaan inaan noqdo ayaga ayaa iga dhigay maantana ma doonayo inaan mid ka cafiyo ayaga muddo dheer ayaana ka codsanaya inay idaayaan ayaga laakiinse imaysan dayin oo maalin kasta ay dhibaateyn jiray maantana waa maalintii aan aarsan lahaa si kastaba ha ahaatee Kim wuxuu guulaystay inuu garaaco wiilka sidoo kalena uu qoriga ka qaado asaga laakiin waqtigaasi lama filaana Haad oo baskoolad wato oo hadda doonaya wiilkii dhibaateyn jiray inuu dilo asaga waqtigaana Moon wuxuu taagnaa meel u dhow wiilka asagoo ku faraxsan wiilkan inuu hadda laayalka la dhigay si uu uga arguto asaga intaa dabadeedna muddo ka hor ayaan u laabanaynaa si aan u ogaano Kim waqtigii uu ka shakiyo Moon intuu waqtiga Kim baaritaanka wadana waxaa loo sheegay meel kasta oo ay wax ka dhaceen in Moon uu jooga asaga asagoona la ogeyn wuxuu meesha ka qabanayo arrintaa darteedna Kim wuxuu go'aansaday inuu la saaxiibo si uu u ogaado cidda ka dambaysa dhibaatooyinkan oo markaan ku laabanno maktabaddana Haad weli wuxuu doonayay inuu dilo wiilkii dhibaatay asagoo baskoolada ku hayo laakiin waqti ku habboon waxaa isaga ka soo gaaray Kim wuxuuna u sheegay inuu hubka iska dhigo si uu u badbaadiyo mustaqbalkiisa baryo badan kadibna ugu dambayntii watay inuu wiilka hubka ka qaado asagoon wax sidaa ayuuna mustaqbalkiisa ku badbaadiyay asaga dhinaca kalena Moon waqtiga wuxuu joogay koonaha qolka asagoo hadda ku faraxsaneen inuu qorshihii ku guul daraystay maadaama wiilkan uu gudan waaya asaga intaa dabadeedna Haad waa la xiray hooyadiina markay arrintaa aragtay aad bay ula yaabtay waxa ku dhacay wiil waqtigaana Kim wuxuu la yaabanaa sida qorshayaashan waa hal mar si wada jira ugu maleegay Moon waxaan ogaanaynaa ninkan inuu ka dambaatooyinka habeenkiina markay wada kulmeen labadooda Moon wuxuu u sheegay inuu yahay wiil kaasoo aan horey wax dhibaato u geyn asaga muddo kadibna Kim markuu ku soo laabtay xafiiska meesha wuxuu ku kay box iyo hal xabad iyo dad magacyadood kuwaasoo loo soo diray asaga fariinta loo soo dirana waxay ahayd way ogaa laakiin waxba igama bedeli karti aniga waqti xaadirkaana dhibaatada hubka waxay ku faaftay oo dhan dadka oo dhanna waxay bilaabeen inay soo gataan si ay nafsadooda u difaacaan arrintaa darteedna boolisku waxay qabteen shir weyn kaasoo ay ku sheegayaan inay wax ka qaban doonaan dhibaatada waddanka dhinaca kalena waxaan aragnaa gabar la yiraahdo Sai taasoo ah kalkaaliso masaakiin mar walbana gabdhaha la shaqeeya waxa isku ayagoo caynayo sidoo kalena intay la shaqeynayso dhibaato badan ku hayeen ayaga maalin maalmaha ka midana intay hawsheeda newska waxay ka aragto inuu hadda ku faafay dalka Kuuriya oo dhan dhinaca kalena Siyug iyo burcadiisa hadda waxay tijaabinayaan hub ay si qarsoodiya u soo gateen ayaga meeshaana waxaan ka ogaanaynaa Siyug inuu horey u khiyaanay saaxiibkii kaasoo kasiino uu ka ballan qaaday u diiday asaga waqti xaadirkaana wuxuu go'aansaday inuu ninka ka cadgoosto intaa kadibna mid ka mid ah burcadiisa ayaa u soo bandhigay ninka inay isaga u weeraraan asaga laakiin Siyug ayaa u sheegay waqtiga ku habboon ayaan hawsha ka howlgalaynaa anaga dhinaca kalena Yu wuxuu ka walwalayay gabadhiisa maadaama uu marar badan wacay hadda sidoo kalena ay taleefanka ka qaban weysay asaga meeshaana waxaan ka ogaanaynaa gabadhiisa iyo dad kale inay lacag ka dhaceen niman iskaamaris ah
kuwaasoo hadda u diiday inay lacagtooda dib ugu soo celiyaan ayaga. Si kastay gabadha isugu dayda inay ka soo ceshatay lacagteeda, way ka diideen arrinta. meeshaana waxay isaga tagtay ayadoo niyo jabsan. goob kalena King si lama filaana wuxuu u aaday guriga Siyogna markuu waqtigaa ogaaday si degdeg ayuu isku diyaariyey, halka raggiisana ay hubkooda diyaarsadeen maadaama ay hadda ogaadeen inuu soo socdo ninkay u dhaarsanaayeen. Kingna maadaama uu ka shakiyay ayaga wuxuu weydiiyey waxay ka kala carareen, laakiin niyadda ayay u dejiyeen, isla markiina lacagta ayay ka qaadeen asaga ayagoo meel fiican u dhiya. dhinaca kalena booliska ayaa kor kala socday kulanka burcadda, maadaama burcaddaanay ahaayeen kuwo aad loo doondoonaya ayaga. si kastaba ha ahaatee Kim wuxuu u adeegsaday gacanyiri si uu uga takhaluso maadaama uu lacag badan u ballan qaaday. dhinaca kalena Siyug habeenkaa raggiisa wuxuu siiyey lacag badan isagoo u sheegaya inay howl fiican qabto, sidaa darteedna waa inaan caawa raaxaysanaa annaga. dhinaca kalena Siyug raggiisa inay si degdega meeshaan laakiin isla waqtigaaba waxaa ayaga soo weeraray booliska. israsaasayn ayaana meeshaan ka bilaabay. si kastaba ha ahaatee burcadda intaysan meeshaa ka baxsan ka hor, boolisku waxay ku guulaysteen inay laayaan qaar badan mida burcadda. dadaal badan kadibna ugu dambayntii waxay dhaceen Siyog, sidaa ayayna gacanta ugu dhigeen asaga. maalintii xigtana boolisku waxay qabteen shir weyn kaasoo ay ku soo bandhigeen hub badan ay qabteen, sidoo kalena waxay sheegeen burcadda qaar ka mida inay soo afjareen. waqtigaana Moon dhacdooyinka oo dhan wuxuu ka daawanayay riga isagoo jooga gurigiisa, halka Yuuna uu gabadhiisa meydkeeda ka helay ICU-ga isbitaalka. markuu wejigeeda arkana aad buu u murugooday asaga. haddana markii ugu dambaysay ayuu mar kala wacay taleefanka, laakiin umaysan jawaabin asaga. dhinaca kalena markaan saldhigga ku laabanno, Kim hubkii ay soo qabteen mid ka mida wuxuu ka helay aalad yar taasoo ajiib wax lagula socon karo. sidoo kalena wuxuu ogaaday Moon hub kasta uu dhoofinayo inuu ku xiro qalabkan si uu u ogaado qofka uu u wado meesha uu jooga asaga. sidoo kalena shakiga ayaa ku maadaama uu ogaaday buug isku mida inuu ku jiro hub kasta oo ay soo qabteen ayaga. dhinaca kalena Sai weli waxaa lagu waday dhibaataynta. si kastaba ha ahaatee waxay tagtay qolka dhalashada, meeshaana waxaa kula kulmay gabdhihii dhibaataynaya ayada, isla markiina waxay bilaabeen inay canaantaan ayagoo kulema waxaa meeshan geysaa annagoo namayn, laakiinse waxay u sheegtay waqtigeeda shaqada inuu dhiyada. si kastaba ha ahaatee markay ka tageen waxay fuqaanadeeda, meeshaana waxay ka shay bokis oo quri ku ugu dambayntiina meeshan waxay ka go'aansa gabdhaha maadaama ay dhibaataynayeen ayada. dhinaca kalena boolisku waxay lahaayeen kulan aan caadi ahayn. waqtigaana Kim wuxuu ninka hubka waddankan usoo dhoofiyay inuu ilmaha yaryar ka gay muddo 3 sano ah. sidoo kalena askarta kale wuxuu uga sheegay taasoo ahayd wiilka asagoo yagistarada. waqtigaana Kim iyo saaxiibadii intay ka wada si lama filaan ayaa fariin loogu waxaana loo sheegay in la burburin doono waddanka sababtoo ah hadda hubka waxaan ku faafiya meel kasta, waxaana doonayaa dadka oo dhan inay islaayaan ayaga. intaa dabadeedna Kim wuxuu muddo inuu saaxiib la ahaa wiilka isagoo isku dayayo inuu xog ka ogaado, balse ninka waa nin ka halis badan sida waana nin aad u khatara asaga. wax yar kadibna askarta oo dhan way istaageen kadib markuu shaashadda ka soo muuqday Moon. meeshaana waxaan ka ogaanaynaa dhammaan taleefanadooda inuu ninkaa haagareeyay hadda. intaa dabadeedna Moon dhammaantood wuxuu kala hadlay shaashadda isagoo u sheegaya hadda inuu kontaroolayo wax kaste, qof kastana qoriga ugu dhow uu soo qaato. markii aan idin amrana waa inaad dishaan qofka idinkugu dhow adinka. isla markiina Kim wuxuu xaqiiqsaday ninkan inuu la hadlayo Yu kaasoo hadda joogay qolkii nimanka dhibaatada u geystay gabadhiisa. Yuuna waqtigaa isagoo aad u caraysan sidoo kalena oynaya wuxuu gabadhiisa sababtay dhibaatada ugu geysteen ayaga, laakiin way iska indhatireen wax jawaabana ma aysan siinin asaga. sidoo kalena mid ka mid a burcadda ayaa koob hortiisa yaalay kusoo tuuray isagoo ku odhanaya muudka ha naga qaldin aan kaa raaxaysanno adiga. Yuuna inkastuu arrintaa ka xanaaqay, mid kaleoo burcadda ka mid a ayaa u soo istaagay wuxuuna bilaabay inuu garaaco asaga isagoo u sheegaya gabadhiisa inay ahayd gabar xun sidoo kalena ay jirkeeda ka ganacsanaysay. waqtigaana Yu dhibaato badan ayaa loo geystay asaga. si kastaba ha ahaatee maadaama uu dulqaadka ka dhammaaday ninkan odaga ah wuxuu la soo baxay baskooladiisa wuxuuna meeshaa ku dilay ninka. burcadkii kalena markuu arrintaa arkay isla markiiba gabar meeshaa joogta ayuu ku gambaday isagoo arrintaa u samaynayo si uu uga badbaado ninkan. Yuuna maadaama uu u socday gabadhiisa keliya inuu aargudo, ninka wuu sii daaya isagoo xabado badan ku ridaya. intaa dabadeedna bannaanka ayuu u ceyrsaday asaga. dhinaca kalena joornaalistayaasha dhacdada si qarsoodi ayay u duubayay, halka Moon uu arrintaa oo dhan uu kala socday taleefankiisa. Yuuna ugu dambayntii markuu rabay inuu ninkaa dilo, Kim ayaa meeshaa yimi wuxuuna ka baryay inuusan ninkan dilin. sidoo kalena hubka iska dhig oo ninkan sharciga ku soo wareeji, sharciga ayaa ciqaabaya asaga. laakiin Yu ayaa iska diiday arrinta sababtoo ah wuxuu rabay inuu u aargudo gabadhiisa. si kastaba ha ahaatee Kim ninkan odaga wuxuu xasuusiyey markuu yaraa waqtigaa uu doonayay inuu ka aarguto nin laayo qoyskiisa, balse waqtigaa waxaa arrintaa asaga ka badbaadiyey Yu. intaa dabadeedna wuxuu ka soo kaxaystay meesha asagoo korsanaya. ugu dambayntiina Yu maadaama uu hadda garowsaday inuu qalad ku jiro wuxuu go'aansaday inuu hubkiisa ku wareejiyo Kim sidoo kalena uu sharciga isku dhiibo asaga. intaa dabadeedna Yu Kim wuxuu u sheegay haddii ninkan xitaa aan dilo maadaama aan ahay askari boolisa
waxaa lay xirayaa 2 sano ama 3 sano muddadaa kadibna waxaan ka soo bixi doonaa xabsiga. si kastaba ha ahaatee Kim ayaa mar kale baryay asaga, maadaama ay yaraantaydii isoo badbaadisana markaan waxaan rabaa inaan kuu abaalgudo oo adigana ku badbaado. ugu dambayntiina Yu wuxuu aqbalay arrinta, hubka ayuuna iska dhigay asaga. dhinaca kalena Moon maadaama uu arrintaa u arkay in qorshihiisii la dhigay, isla markiiba wuxuu ka soo degay gaarigiisa. intaa dabadeedna 2 ka mida burcadiisa ayaa soo raaceen. intaa dabadeedna booliskii goobtaa joogay ayay xabad ku fureen ayagoo mid mid u dilaya. Kimna markuu arrintaa arkay wuxuu isku dayay inuu ninkaa la dagaalo, balse intaan la dilin ka hor xabadihii loo waday waxaa isku dhigay Yu, meeshaa ayuuna ku dhintay asaga. ugu dambayntiina Yu sidaa ayuu dunida ku macsalaameeyey asaga. intaa kadibna Moon wuxuu si xun meesha ugu dhaawacay Kim. intaa dabadeedna wuxuu isugu yeeray saxaafadda si ay waraysi uga qaadaan asaga. markuu TV-ga ka soo muuqdana dadka hortooda wuxuu ka hadda guri kasta oo ku yaala South Korea inuu qori yaalo, sidaa darteedna dadkii horey loo dhibaatayn jiray waa inay dadka kale ka cadgoostaan ayaga. aniguna dhab ahaantii maahay qof dhibaato wada, laakiinse waxaan doonayaa dadka oo dhan inaysan ku dhicin dhibaatadii aan soo maray yaraantayda oo kale. qof walba oo la dhibaateeyana waxaan rabaa inuu gacantiisa ku ciilbaxo asaga. sidoo kalena waddankan wax sharciga kama jiraan, marka sharciga waa inaa gacmihiinna ku adinka. waqti kadibna hubku si sharci darraa wuxuu ugu faafay dalka oo dhan. dadka oo dhanna hadda hubka si caadi ah ayay u wada haystaan. dhacdada la yaab kalese waxay intay mashaqadaa socotay, mid ka mida eedaysanayaasha maxkamadda ayaa soo qaadatay baskooladeeda. intaa dabadeedna waxay dishay garsooraha. sidoo kalena dadku waxay bilaabeen si caadiya inay hubka u kala gataan ayaga. xitaana waalidiinta ilmahooda yaryar waxay bilaabeen inay baskoolado u soo gadaan ayaga. si kastaba ha ahaatee dowladdu markay arrintaa aragtay waxay bilowday inay tilaabo degdega qaado ayadoo tiifiyada ka hadlaysa. sidoo kalena waxay sheegeen dadka hubka gacantooda gala inay dib ugu soo celiyaan gacmaha sharciga. laakiin arrintaa waddanka waxay ka dhalisay dood weyn. dadkuna waxay u kala baxeen 2 kooxood. koox waxay doonaysay inay hubkooda haystaan si ay u difaacaan nafsadooda, halka kooxda kalena ay doonaysay hubka gacmaha sharciga in dib loogu celiyo. maadaamay arrintaa keentay isku dhacyo waaweynna, waddanku wuxuu cagaha la galay dagaal sog. dhinaca kalena Moon wakhtigaa wuxuu joogay gurigiisa raaxada, asagoo hadda ku faraxsan qorshihii inuu u hirgalay siduu rabay asaga. dhinaca kalena Sue weli waxay ka cabanaysay dhibaatada ay ku haysa naagta madaxdeeda ah, maadaama ay shaqo badan u dirtay hadda. sidoo kalena ay mar walba ku eedaynaysay nimadeeda. maalin maalmaha ka midna maadaama ay naag taacaysay ayada, aad bay u xanaaqday gabadha. intaa dabadeedna waxay furtay. intaa kadibna meesha waxay kala soo baxday baskoolad cusub. haddana markii ugu horreysay waxay damacday inay hubkaan si ay u aargudato ayada. dhinaca kalena waddooyinka Seoul waxaa ka dhacayay bannaanbaxyo waaweyn, taasoo ay isaga soo horjeedaan dadka doonaya inay hubka haystaan iyo dadka diidan. dood xooggan ayaana fagaarayaasha bannaanbaxa ku dhex maraysay ayaga. muddo kadibna Kim markuu soo kabsaday farriin qarsoodiya wuxuu ka helay Moon si ay labadooda u wada kulmaan ayaga. muddo kadibna markay si qaasa u wada kulmeen labadooda, isla markiiba Moon Kim wuxuu u sheegay qorshihiisa siduu rabay inuu ugu guulaystay. mar walbana anigu waxaan garab taaganahay dadka masaakiinta ee la dulmay, waxaana rabaa inay aargutaan ayaga. laakiin Kim ayaa ugu jawaabay waxaad tahay qof walan, sida aa xalka u aragtina waa burburka dalkeenna oo dhan. balse Moon ayaa ugu jawaabay anigu waxaan ku dadaalayaa siduu qorshahayga u hirgeli lahaa, haddana dhammaan waddanka oo dhan waxaan ku faafiyaa, mar dhowna dad badan ayaa la laynayaa. dhinaca kalena bannaanbaxayaasha waxaa ku soo fariin goostay gaari weyn, isla markiina gaarigaa waxaa la istaajiya meesha. intaa dabadeedna shiraaca ayaa laga qaaday, waxaana saarnaa hub aad u fara badan. intaa dabadeedna dadku waxay bilaabeen inay gaariga kala soo degaan qoryo boobayaala oo aad u halis badan. goob kalena Kim markuu arrintaa arkay wuxuu bilaabay inuu la dagaalo ragga Moon, asagoo mid mid u laynaya ayaga. si kastaba ha ahaatee boolisku waxay xakameyn waayeen rabshadaha, maadaama hubka uu hadda u gacan galay shacabka. sidoo kalena meesha waxaa ka dhacday mashaqo badan, dadkuna waxay bilaabeen inay islaayaan ayaga. dhinaca kalena Moon wakhtigaa bamba qiiciisa ayuu ku dhex turay dadka si meesha aan looga dhex aqoonsan asaga. wakhtigaana kor waxaa asaga ka arkay Kim, isla markiina wuxuu soo aaday dhankiisa si uu ninkaa u soo afjaro. si kastaba ha ahaatee dadaal badan kadib ku guulaystay inuu toogto ninka. dhinaca kalena dadku waxay bilaabeen inay isku laayaan hubkii ay heleen, ayagoo u kala baxaya 2 guri. bulshada waddanka oo dhanna hadda waxay ku dhoweyd inay burburaan ayaga. waddanka oo dhanna hadda wuxuu ku dhowaaday inuu burburo asaga. wakhtigaana si lama filaana waxa u aragnaa wiil yeegan goobta dagaalka, kaasoo waayay waalidiintii. isla markiina si lama filaana wiilka waxaa u badbaadiyay, wuxuuna u sheegay inuusan baqin asaga, wax kastana ay u hagaagayaan. dhinaca kalena Sai maadaama ay TV-ga ka daawatay dadku siday isku laynayaan, waxay garowsatay hadda hubkan inuu halis ku yahay ayada iyo dadka kale. sidaa darteedna waxay ka laabatay qorshaheeda. meeshaana waxaan ka ogaanaynaa dagaalka intuu 70 qof, tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen.
laakiin hal sawir ayaa dagaalka ka siiyey kaasoo ahaa Kim markuu badbaadinaya wiilka yar. Maalmo badan kadibna dadku si tartiib tartiiba waxay ugu hoggaansameen sharciga ayagoo hadda bilaabay inay dib u soo celiyaan hubka gacantooda ku dhacay sababtoo ah waxay ogaadeen dhibaatada. dhinaca kalena waxaan ogaanaynaa xaqiiqo la yaab leh taasoo ahayd Moon inuu weli nool yahay maadaama dagaalka kadib uu asaga badbaadiye Kim. sidoo kalena dhaqaatiirtu waqti xaadirkan waxay ku dadaalayaan sida asaga uga daaweyn lahaayeen cudurka psychoga uu la ildaran yahay. bil kadibna Kuuriya waxaa u dhashay waa cusub, waddankana dib wuxuu ugu soo laabtay gacanta dowladda. ilmaha yaryarna waxay bilaabeen inay dib u aadaan iskooladooda. wiilkii yaraa ee aan ku soo arkaynay dagaalkan hadda aad buu u faraxsan, wuxuuna la joogay askariga la yidhaahdo Kim. wiilkan yar iyo askarigana si wada jira waxay ugu inay badbaadiyaan dalkooda. filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaa. haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan muuqaalkeenna laag saar, sidoo kalena janalkeenna ku soo biro subscribe. waa ku mahadsan tahay la joogistaada.